muddo dhaweyta aroos baa dhacay habeenkii subaxdiina waa la isfuray raggii ogaa oo goobjooga ka ah markaan weydiiyey waxay ii sheegeen ninkii gabadha soo doonay wuxuu yidhi hooyada gabadha dhashay wax alla waxaa rabtid iga qaado gabadhaan ku qurxi laakiin hotel la geeymahayo arooskayga hotel la geeymahayo way aqbasho waxay tiri keen lacagihii ay sheegteen iyo waxay rabeen buu dhiibay aqalkiisii buu diyaarsaday subaxdii barqadii markay tahay oo uu filahayo guriga inuu ka dhaco ayaa hotel inta hoos lagala heshiiyey gabadhii iyo hooyooyinkii iyo israaceen gurigiina dhowr qof baa lagu reeb habeenkii 4 saac 6 saac markay tahay baa waxaa la yiri gabadhaadi aawa xaaskiisu u sugahayay soo yiri guri baa lagu dhigay arooskii maantay oo gurigii baan sugahayaa ma qan wax ku dhacay waxaa loo soo tuuray sawirkii gabadha iyo dumarkii iyo wixii sawirahayay iyo hotelkii iyo wixii yaalay baa loo soo diray habeenkii gabadhii waa iska sugay markii la keenay oo gurigii loogu keenay waxa u soo baxday gabadhaan inaysan lahayn hooyo naasixad ah oo u khayr miiraysa oo xalaala oo daacada hooyadaas inaysan noqon karin sodoh gabar iyo qoys lagu aaminay inaysan u noqon karin waxa u soo baxday qoys khiyaano ku bilaabay noloshooda si ay ku sii wada noolaadaan inaysan macquul ahayn habeenkii gabadhii markii la keenay halkaas oo kale uu seexiyay waagi markuu bariyay buu hooyadeedii aabaheed u yeeray waraystu yiri gabadhaan halkaas ay xala seexatay gacnaheenu isma gaarin saacada laga bilaabo iga fasax wax alla wixii qarash iga galana waa iga fasax waxba idima haysto gabadhiina wata maxaa dhacay markii la yiri wuxuu yiri sawiradan arka hotel baa tagteen ballantii waad ka baxdeen dad lala xidido laga guursado ammaano lana ma tihiin dhaqan xumana gurigeyga ku bilaabaysaan gabadhiina waa idin furanta sidii ayuu ku fasax hal mar bay hooyadii aabihii intay argagaxeen gabadhii gacanta soo qabsadeen oo boorsada soo qaadeen waxaa keenaya waxa weeyaan mukhaalafatu sharci illaah ilaahay sharcigiisa haddaad khilaaftid waxaad ogaataa ilaahay waa kugu ciqaabin ilaahay waa kugu ciqaabin ciqaabtaasina way ku imaan ma rabtaa inaad farxad ku noolaatid gurigaaga ilaahay kuu barakeeyo shuruudan badanna joojiya waxaan adayga ka batay iska daaya fisqigaana ka dheeraado ilaahay uga baqa gabdhihiinana nin kasta oo wanaagsan siiya kana daayo hoteelada ilaahayna waxaan weydiisanaynaa biasmaa'ihi wa sifaatihi inuu inoo barakeeyo gabdhaheena hooyooyinkeena ilmaheena dhammaantood guur saalixa oo wanaagsanna ilaahay subxaanahu wa tacaala u sahlo sala allahuma calaa nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه أجمعين